waa kuwaan sawirradii Safiya Tusmo ceebta looga dhigay war Soomaaliya maanu ceeb aqoon maanu Ilaahay ka baqayn maanu gabadha yar walaashayna iska dayno war gabadha haday guursatay haday nin maaragtay isla soo sawirtaba ayada qof xor ah ayada qof weyna marka ceebta aan walaashay la doonayno waxa waaye hoosteena ka helaynaa gabadha walaashaha ceebta la doonto hoosteeda ka helaysa qof walbo maaragtay islaamma waxaan maaragtay ku waaninayaa anigoo hargabahaya caawa soo kiciyay ooyinta gabadha Safiya Tusmo ceeb maahan gabadh nin guursato waa la arki jiray gabadh la soo sawirto waa la arki jiray barefsigeeda u daaya dad maqlaysaan ma aragtay walaalayaal ka xishooda dumarka ka xishooda hablaha ka xishooda qofka walaal hadaad wax ka tabanayso waxa la yiraahdaa walaalo waxbaan ka tabanayaa intii maaragtay sidaan oo dhan aan u gari lahayd waxa ka fiicnaa adigoo maaragtay gabadha dacwada u qabto u sheegta oo yiraahdo walaal anigu dacwadaas aan ku qabaa inta iga soo garba hadii qofku markaa ka garbaxo eel buu leeyahay dad buu leeyahay marka walaalayaal aan isku xishoonno qofka aduu yahay maaragtay qof maqlaaya waxaan ka codsanayaa inuu gabadha ilmadeeda naga horwado inuu gabadha barefsigeeda iyo maaragtay howlaheeda u daayo inuu telefoonkeeda iyo maaragtay wuxuu ka jabsado u daayo maaragtay arrintan waa arrin soo noqnoqotay qofka maaragtay gabdhaha ayaan la ceebeyn gabdhaha maaragtay ayaan la daba galin hadaad gabar tahana aduna gabar baatay xisho hadaad wiil tahana gabar waa kula dhalatay ama waaba ku dhashay ama waabay kula dhalatay intaaba afgaro marka aad baan uga xumahay Safiya Tusmo iyo inta gabdho la midaba waxaan maaragtay aad uga xumahay arrimahan soo noqnoqonaya dhacaya kuwa wax dilaya kuwa wax dhacaya iyo kuwa wax ceebeynaya kuwa wax kufsanaya intaba waxaan leenahay dee dumaraan nahay waana idin dhalnay waana idin dhaxnay waana idin la dhalanay inta noo dhaama hadaad ragtiin hadii dumarku dumar kale ay ku jeedaan wax sidan yeelaya iyana ay dumar kale yihiin iyana waxaan leeyahay dee hayna wax isku la haraano farxiye kabayar iyo gabar saaxiibteeda ayaa arrintan aad uga carooday waxaanay soo duubeen codkan ayagoo markaasi sheekaysanaya waxaanay leeyihiin hooyo Safiya Tusmo waa gabar cajiiba maasha Allah ceebna ma lahan toona yaani ceeb cid u yeelin waarna saxaaf fara badan ku raacsan oo taageerayaal fara badan oo Safiya Tusmo ay ku leedahay dafaaca caalamka ayaa iyaguna muujiyay taageerada ay u hayaan Safiya Tusmo ayadoo dad badan ay baraha bulshada ku soo qorayaan Safiya Tusmo qof ceeb la maahane cidina yaani ceeb u raadin bal waa kan aanu ayagana dhageysano aan taawano markaasayba fashil ku dhamaaday wax la haay male fashilaa ku dhamaateen ku dhaka dhamaada ummadda Ilaahay Safiya Tusmo waa hooyo waa maamo sharaf leh yaa cisi karaamo leh ninkeedii xalaasha u ahaa sawirro ay isla galeen oo ugu jira telefoonkeeda dadka fashilaa ku dhamaateen ku dhaka dhamaada ummadda Ilaahay Safiya Tusmo waa hooyo waa maamo sharaf leh yaa cisi karaamo leh ninkeedii xalaasha u ahaa sawirro ay isla galeen oo ugu jira telefoonkeeda dadka irsaaqad ka raadshay shuuba idin dhashay shuuba dhashay ka dhamaada dadka ka dhamaada oo cilaatiine watan maama Safiya Tusmo oo qofka ka jabsaday Snapchat-keeda weydiinaysa bal maxaan ku dhibay hadaad doonaysid inaad dhibaatayso aniga uun maxaad ii dhibaatay weys maxaad cid kale u soo faragashatay maxaa dadkii kale meesha igu jiray caruurtii ninkii iyo howlahaas oo dhanba ku galiyay iyadoon u jeedin ay Safiya Tusmo weydiinaysaa su'aalahan qofkiina asigii baa hore u qaatay oo meeshii uu asna soo dhigay marka dee aanu aragno bal aanu wax yar ka wada daawano xaaladda Safiya Tusmo waan u duceynaynaa insha Allah in Ilaahay u saqiro howlahaas isaga waa nin raga Soomaali ma nahay only mar walba dhibaatada dhacdaaba dumarka unbay ku dhacdaa nin rago sawirkiisa la soo dhigo amba naag dhunkanaya amba naag la jooga iyagoo naag fursanayaaba wax noqonin laakiin waxa dhaawac gaaran waa dumarka weeyaan you have no idea waxa naga dhaxeeya ma ogid waxaan isku nahay ma garan kartiin wixii anaga relationship kayaga iyo noloshayda waxay tahay ma garan kartaa teleefankayga markaad surgery ku samaysay aad qashay intaasoo kaliyaad heshay intii baanad mooday inaad wax igu yeeli karto ani hadda waxaan ku ooyay waxa weeyaan ilmahayga sharcigiisii oo yaacay ma aragtay maanta Snapchat dhexyaala kama oohinaya ani waxa igu dhacay this is what I did is aniga weeyaan aniga waxaan cuqdad ka qaba maaha because aniga iyo wiilkan relationship kayaga iyo wixii naga dhaxeeyo ma garan kartid kaliyahaati waxaan beerka i qarxiyay ubadkayga isoo wacayo waxaas daawanaya iyo sharciga ilmahayga ma aqaano waxaan ku geysanay maxaan ku dhahdaa in ka galay ma garanayo xumaatada inta la eegin haybka inta la eegay qabtidna aanu garan maayo
haddaad doonaysid inaad ani ibaabi'iso waxay ahayd inaad ani keligay ibaabi'iso dee waxaad iga hayseed la ordaysa aad maaragtay aad ani keligay la timaad inaad dad kale maxaan ku dhahdaa idur saartana ma ahayn oo qof kale ila raadiso inaad isaga inay la baabi'iso ubadkaygana inaad maaragtay maxaan ku dhahdaa id raadiso ma ahayn alxamdulilah inaanan caruurtayda ku haynin halkaasi sawiradooda iyo wax barayfada ubadkaygu leeyihiin inaanu snaabkaa ku jirin taas waa alxamdulilah social securitygaasi aad meesha lasoo dhigay iyo dareefa lesankaasi shalay baan screenshot ka qaadan caruurtayda u diray maantana waad arkaysaa wax walba waxa igaga daran aniga igaga daran maxaan ku dhahdaa waxa ani igu dhacaya igaga daran sharciga ilmahayga ummadda lala sheergareeyay